waxaa jira xeerar la yiraahdo 7 da waxaana lagu gaaraa guusha hadaba ina keen si aynu si habsami leh u bilowno qodobadan muhiimkayno ah أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصي waxaynu ku bilaabi doonaa xeerka koobaad ee ah dadaalku waa inaad joogtayso ama aad u adkaysatid shay ilaa inta aad ka dhamaynayso dadaal si aad u gaarto halka aad ku taahayso inaad gaarto waana wada muhiim u ah ma hoogo oo ma qasaaro qof dadaalay talana saartay rabbigiis wax badan dadaal dhibaato kastana ka hortag shay kastana ku celceli ugu dambeyntii waad guuleysanaysaa dadaalku waa shayga ugu horeeya ee laga rabo marba haddaad tahay ruux meel u jeeda haddii aad tahay qof u socdo meel ayna u caddahay meel waxaa laga rabaa halgankuna ma ahan dagaal aan galayno oo uu hubkiisu yahay gantaalo waaweyn kuwaasoo maanta isu adeegsadaan dowladaha waaweyn kolba inta dadaalkaagu yahay unbay sarayntaaduna noqotaa ninkii sarayn doonaa habeen buu soo jeedaa qaanuunka labaad ama xeerka labaad waa dulqaad inta aad ku socotid wadada baadigoobka guusha aad ugu jirto waxaad la kulmi doontaa caqabado iyo carqalado fara badan oo inaad u dulqaadato ay tahay mid muhiim ah haawaad dhibaatoon dadka wax kaa sheegi waxunbay ku arki way ku cabsi gelini laakiin waa inaad u dulqaadataa dhib kasta oo ay noloshu ku tusiso war u dulqaado jab kasta oo kaaga yimaada aad ku jirtid wadada guusha qaanuunka saddexaad dabeecadda wanaagsan diinta way ammaantay waana mid ka mid ah furayaasha iyo asbaabaha guusha ogowse in ay ka mid tahay astaamaha dadka guuleysta dabacsanaan inaad tahay qof dabacsan oo naxariis badan waa mid ka mid ah sifooyinka wanaagsan oo ay culimada daraaseeya horumarinta aadanaha ay sheegaan inay ka mid tahay calaamadaha dadka guuleysta haddaba qof aan dabacsanayn oo aanan naxariis lahayn way adag tahay inuu guuleysto qaanuunka shanaad daacadnimadu waa tilmaamaha ay leeyihiin dadka guuleysta waxayna daacad u yihiin naftooda dadkooda iyo dalkooda ma khiyaanaan dadkooda maxaa yeelay waxay og yihiin inay khiyaanadu ay ku soo dul noqoto khaa'inka naftiisa khaa'inkuna uusan liibaanin qaanuunka lixaad noqo qof deeqsi ah oo ugu deeq caalamka wixii lagugu deeqay maxaa yeelay wixii aad bixiso bedelkeeda ayaad heli qaanuunka toddobaad ee ka mid ah qaanuunada lagu gaaro horumarka ayaa ah dad la socod waa inaad leedahay asxaab markasta kugu dhiirigelisa baadigoobka aad ugu jirtid wadada guusha la soco dad garanaya qiimahaaga hana ka waraysan qiimaha noloshaada qof aanan garanaynin ku dadaal 7 da oo ah qaanuunada lagu gaaro horumarka iyo guusha waxayna ka saacidi doonaan inaad gaarto halka aad doonaysid أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصي